بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu hore u soo akhrinay ciddii joogtay iyo ciddii dhegaysatayba 6 muxaadaro oo ku saabsan sidii tataarku ay u baabi'iyeen dhulkii muslimiintu ka talin jireen iyo 3 dowladood oo waaweyn oo dowladihii muslimiinta ka mid ahaa. muxaadaradii 7aadna waxaynu kaga warrannay dowladdii ugu dambaysay afraad ee dagaal la geli doonta iyo wadcigeedii siyaasiga ah iyo qaabkay u dhalatay ama qaabkay u jirtay oo ah dowlat almamaalik. maanta 2 muxaadaro kale ayaan waxaan kaga warrami doonnaa markaa qaabkii loo celiyey ama se loo jebiyey dagaalyahanadii tataarka iyo weliba qaabkii markii dambe dowladihii tataarku ay u islaameen. waa 2 طariiq oo culamo muslimiin oo kala gedisani martay. qolana طariiqu dacwa bay u martay oo dowladihii sidooda u jira islaamnimo u beddeleen. qolana طariiq aljihaad bay u martay oo tataarka horu socodkiisii iyo wixiisii bay joojiyeen. 2 qadiyadood baan rabaa inaan soo bandhigo. ta koowaad marka oo dariskani uu ku saabsanaan doono waa dagaalkii loo yaqaanay caynu jaaluut. caynu jaaluut waa magaalo ama waa meel goob uu ka dhacay dagaalka kani. waxaynu soo tilmaamnay masar iyo idiraabaadkii siyaasigee ka jiray iyo duwal ilmamaaliik ama mamaaligta dowladdoodii markay samaysantay iyo wixii dhib ka soo dhacay ee bilowga ahaa. waxaynu soo marray sanad gudihii iyadoo uu dhintay boqorkii hore najmuddiin ayuubiga ahaa, la dilay inankiisii towranshaah, la dilay ciisadiin aybik oo madaxweynihii ku xigayah, la dilay shajaratu dur oo gabadhiiyana madaxweynaha noqotayah. waxaynu soo gaadhnay iyadoo uu maamulka gacanta ku hayo nin la yidhaahdo qitus ama qutus la yidhaahdo, maxmuud ibnu manduud, qutusna lagu naanayso ama loo yaqaano. masar wakhtiga kan markaa masraxeeda daakhiligii saas u ekaa oo hawraad tiro badan ayaa dhexdeeda ka socday. dhan kale markaad ka eegto waxaynu soo marray iyadoo ciidankeedii maadaama inqilaabba uu isku dhigay uu gudihiisa iska dilay oo ciidanka qaybihii aan odhan karno way ugu xoog badnaayeen ay baxsadeen. waa mamaaliik albaxriya nimankii la odhan jiray najmuddiin uu sameeyey ay ka baxsadeen waddanka kadib markii la dilay guddoomiyahoodii ama hoggaamiyahoodii. jeyshi masar markaa ama ciidankii waddanka muslimiintii uu lahaa wuu daciifay maadaama uu dhexdiisa iska dilay oo mucasiyiintii iyo ay isu dileen mamaalik albaxriya. masraxa siyaasiga khaarijiga haddaynu eegno ama siyaasadda dadkii ku wareegsanaa waxay ahayd masar cilaaqaadka ay la leedahay cidda dabadda ka xigto oo dhammi waa cilaaqaad colaadeed. xaggan waqooyiga cidda rasmigee ka xigtay waa falastiin iyo lebnaan iyo meelaha imaaraadkii yaryaraa ee masiixigae tirada badnaa ee caka ay u xoog badnayd. caka, suur, sayda, bayruut, trablus, waxaasoo dhammi antakiya ilaa laga gaadhayo xeebtaa dhinaceeda waxaa ku taxanaa imaaraad saliibiya ama masiixiya ama nasaaro ah oo ah kuwii ay ku soo degayeen ama meelihii ay qabsadeenba markii ay yurubiyanku soo duuleen 7dii duulimaadee hore ee kii u dambeeyey aynu ka warrannay ee ay masar ku soo duuleen.
dhanka kale markaynu eegno wakhtiga kan duwalkii ayuubiga ahaa ee ka jiray shaam laftoodu colaad bay u qaadeen nimankan mamaaligtee qabsaday waddanka kan oo waxaynu sheegnay dhowr goor inay ku soo duuleen markaa masar cidna lama heshiisa ha dowladda ka dhisani meesha intaa waxaa raacda dhibaato dhaqaale oo dunida waxaa la yaqaanaa meel kastoo dagaalladu ay ku bataan inay ku dhacdo maxay dhibaatooyinka dhaqaale inay abuurmaan markaa masar gudaheedana dhibaato dhaqaale oo daran baa iyana ka jirta su-aashayn markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan masar waxaa duulimaad ku soo ah aqwa dawla fi lcaalam holaako oo lagu qiyaaso ciidamadu wato 400 kun oo askari inuu wato waxa ay ciidamada holaako hordhacoodu degan yihiin markaa magaalada ghaza falastiin xuduudan masar ilaa halkaasoo haystaa oo inta kale uu ka soo gudbay waxaynu u baahanay inaynu istusinno oo maarayno oo ah mawducu alcibra qisada oo dhan dhulkaynu uga soconnay ka mid ah siduu u maareeyey qutus xaaladda nooca kana gudihii oo ishaysta dabaddiiyo dowlaadkii ku dhadhowaa oo la wada cola ciidan aad u xoog badan oo dowlad weyn oo ajanabiya soo wado dhaqaala burbur haya intaasoo ku kulansan ayuu qutus madaxnimada qabtay qutus wuxuu ku talagalay inuu jihaatamo oo wax iska dhiciyo laakiin jihaadku maaha frontkoo la tago uunoo qori la qaato wuxuu u baahan yahay siyaasa cadiima ka horaysa walidaalika waa deriska ugu muhiimsan meesha tani aan raba inaad si fiican u fahamtaan qutus khuطuwaatu tagyiir waxay culammadu ku tilmaamaan buu sameeyey tallaabooyinkii isbeddelka kow siyaasaddiisii koowaad wuxuu ku bineeyey waddankan dadka deggan inuu midayn karo وإلا هدي كلا تفرق سين عدو اسكما علين كران سواء كوح جهة ميسا أمها تشوكتا أما يشوكين وهذا كان مسلمين تا مصر هدي سياسيين تيدا يعيد مديدا يدد كيدو يسحيان يجو قدهود يجو أي علي هينو اسديليان وأن صوشيقني مدحدو دينا انت علايين إنو انت أصنينو مضحي انقلاب كل انتي توران شاه عز الدين أيبك ما هلا إذا شجرة الدر هلا إذا كان كي عيدن كايستي فارس الدين قطاي وحاصلنا وعي الضمر بوحي نشاقني إن دل أي موتين نينك ودن كعين كاسا حكم كيسا إساقو مركاسي ويل كيرا ماشا كإنقلابي وقبصدي وحكوت لجرانا إنو الدقال قاله أقوى دولة في العالم إنو اسكدعيه تاسي وحي كان ستي مركز إنو السياسات كيسا دي بقول نغضه أولاً وحكب بلابا استقرار الوضع الداخلي ودن كجوده سسيدة سياسة الله سبحانه كراه وحوي سقي ياري ودن كأمراديسي يا قادديسي عسكري جاهد يا دتك سوايل كها يا علماء ديسي بو سقي ياري وودن كوحي مدحها تليني أيو شر سقي ياري دبتنا قطس وحكالا ورا kala hadlay qadiyadatan wuxuu ku yidhi markuu soo ururiyey innii maa qasadtu ilaa an najtamica calaa qitaali tataar waxaan idiin sheegayaa buu leeyahay dadyowgiinna kan madaxda iyo waayeelkaahi wiilkanaan meesha ka riixay inqilaabay ee aan qabsaday dan kale kama lihi ilaa iyo inaynu u midowno tataarka inaan iska dhicinno mooyaane waxaanan ogahay buu leeyahay dowladnimo inaan yaroo carruuri haystaa inaanay wax dhicin karaynin walidaalik haddaa ila midowdaan oo aynu ku midowno inaynu tataarka iska celinno waxaan ballan idiin qaadayaa sultadu inay halkaa iga taallo oo ciddii idinka aad doontaan maamulka u dhiibataan yacnii qidus wuxuu leeyahay anigu ma ihin nin madaxnimo doonaya waxaana haysan nin raba inuu u taagan yahay inuu muslimiinta wax ka dhiciyo maadaama ay qadiyadu caynkaa tahay hadda waxaan u baahanay buu leeyahay inaynu dagaalkaa gallo
maalintaynu guulaysannana cidday ummaddu u garataa oy madaxu noqoto aqiimuu fi sulta man shi'tum قطس قطايات كان علماء وحيلين مسلمين تاهي عدالة يثق أيا لغو تهمية ما هين منافق مناورة سياسية إنه ضدك ورورية ونكون دقال قالوا كرسي وكل حجستنون يالا ما هين أسباب بدنو تاريخية علماء الشرحان درادد لكن وقت غير وكا قدبية وحكى الله معروفة قيادة النبطة قائدك مرموق يلا يقانو هقانك الرسمي قاي وهجانك حالاتك أزماتك ومدى ورورين كرا يعني وقتك ربطو شرتي أزماتك قفك مع الأزمة ومد هجامين كرا ورورين كرا واقعيت النبا نكن رنتي صفات القيادة والنبا بوت مدحدي يا أمرادي يا علمادي يا دتك ويالك وحكوله الشيء إنه ماشي أكد دقا يعدي للربنا الله دورته danta uu leeyahay tahay inuu tataar la dagaalamo wuxuu kaloo dib ugu noqday dowladdiisii wasaaradii iyo kuwii uu arkayay inaanay barnaamijkan xamili karin wuu casilay waxaa ka mid ah ibnu binti laaciz nin la odhan jiray oo ahaa wasiiradii shajaratu durr gabadhii la odhan jiray ku dhowaa wuxuu ku bedelay wasiir la yidhaahdo zaynadiin yacquub ibnu cabdirafiic wuxuu ogolaaday raggii mamaalik albaxriya ay ishayeen nin ka mid ah inuu ciidamada u daayo aanu ka bedelin waa nin isagana la yidhaha farisidiin aqtaay assagiir alkabiir waa kii la dilay waa isku magac laakiin waa nin kale oo labaad ninkaana wuxuu u ogolaaday qiyaadadii ciidanka inuu hogaamiyo bacdi ru'uusi alfitan ama nimankii madaxda ahay inqilaabada wadooday qaybo ka midana wuu xidhay qodob labaad buu sameeyey oo dagaalkan ugu diyaar garoobayo qodobka labaad ee dagaalkan ugu diyaar garoobaya waxa weeyaan alcafwi alxaqiiqiy inuu yidhaahdo ummaddu hayse saamaxdo waa rag isdilay siyaasad isku dilay madax badan kala khaarajiyey dhibi kala gaadhay kala baxsaday oo ciidanka masar ragga ugu khibradda badan leh ugu xoogga badan leh waxaa ka mid ahaa ciidankii uu sameeyey najmudiin ayuub ee almamaalik albaxriya la odhan jiray ciidankaas janankii haystay waa kan la dilay qutus wuxuu ka tirsan yahay koox kale oo mucizey kooxdii uu sameeyey cizadiin aybik ciidankaasi raggiisii ninkii ugu khibradda badnaa baan odhan karnaa ee wakhtigaa noolaa bebrus ninkii la odhan jiray wuu baxsaday dimashq buu tegey naasir yuusuf buu la joogaa qolyo badan oo ciidanka ka midi waa kuwii yaacay ee boqorkii cabbaasiyiintu dhexdhexaadiyey ee la yidhi ghaza iyo agagaarkeeda iyo meelaha falastiin ha degaan badh waddanka dhexdiisa iska joogaan laakiin waa ragga ay ragga colloobeen ee aan waxba gacanta ku haynin qatis markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa ciidankii mamaalik albaxriya dhammaantii inuu dib u soo noqdaa ciidankaasi inuu dib u soo noqdaa khatar wuxuu ku yahay kursiga qutus bale xaqiiqo taariikhiya haddaan sheego iyagaa dilay aakhirkii babris laftiisaa dilay iyo koox watay laakiin qutus inay khatar isaga iyo dowladdiisa iyo naftiisu gasho iyo in muslimku khatar galo wuxuu qaatay intiisu khatar gasho oo muslimku uu badbaado yacni qutus wuxuu u taagan yahay inuu mamaalik albaxriya uu ka xoog batay uu sidaa kaga takhalluso oo kursiga kan haysto laakiin ma iska dhicin karaa markaa dowladdii tataarka ahayd wuxuu ka doorbiday in isaga kursigan uu khatar galo bal ee uu aqbalay inuu kaba tanaasulo haddii ay muslimiintu isku raacday inuu tanaasulo wuxuu aqbalay inuu tanaasulo isaga iyo kursigiisuba inay khatar galaan laakiin faa'iidadu ay maxay tahay faa'iidadu ay tahay muslimku sidii uu guulaysan lahaa saa daraaddeed kafaa'adkii caskariga ahaa janannadii iyo raggii ciidanka ka tirsanaa iyo askartii mutamarisiinta ahayd qaadadii kuliyaat alxarbi ka soo baxday ee ishayeen ayuu yidhi dhammaantiin dib u soo noqda waa laydin cafiyey
waa niman khatara nimankaa uu soo celiyey laakiin waa nimankii Louis التاسع boqorkii Faransiiska iyo ciidankiisa 700 ee safiine u watay waa nimankii ciidanka intay dabar gooyeen maca boqorka soo qabtay waa rag aan looga maarmin dagaalka Tataar saa daraadeed kursiga khatar gala buu qaatay العفو عند المقدرة bay culimadu yiraahdaan waa ammaan isagoo kursiga fadhiya oo ka xoog batay ayuu aqbalay dhammaantood inay soo noqdaan waliba waxa uu garanayay nimanka kale waxay ku kala firdhadeen waxa la yiraahdaa qaarkood salaajiqatu ruum bay u tageen turkiga qaar galeen qaarkood urdun boqorkii kurk meesha la yiraahdaa haystay bay u tageen qaar dimashq bay joogeen wixiiba dib bay u soo noqdeen bale madaxdoodii buu si fiican u soo dhaweeyay si uu dagaalka ugu diyaar garoobo alqaa'id Bebros ruknuddin Bebros ninkii la odhan jiray oo isagu waa nin muslim ah iimaan badanina ku jiro dagaalyahana waayeel khabiir ku ah dagaalka ah dagaaladii qudus lagu xoreeyay raggii ka soo qayb galaya ee najmuddin iyo waqtigu qudus xoreynaya waa jananadii ciidamada hogaaminayay waa labadii janan ee Louis iyo ciidankiisii jabiyay waa nin khabiira marka kana da'weyn qudus iyo qolada tan oo dhan wuu u yeedhay waliba waa ninkii dimashq naasir yuusuf markii ay ku soo socday hoolaakiya ciidankiisii laha waraan dagaal gal la yiraahdeen waynu baxaynaa markuu baxsadeen ayuu iskaga hadhay isagu keligii ma waajihi karo firdadkii Falastiin buu isna iska galay xaggana Masar raggiisii waa la leynaya way ishayaan Masarna wuu ku soo dhiiran kari waayay isagoo Falastiin dhex wareegaya ayuu Qudus fariin u diray uu leeyahay soo gal Masar adigoo sharfoon waynu dagaal galaynaa oo waxaynu iska celinaynaa Tataarka waliba markuu Masar yimi wuxuu ogolaaday iqtaac منطقة قليوبي يقرأ تولين كو حكسا وحاسو دموسي وحكا دقى أمير من الأمراء نكا إسهايا نفردت يا عين كاسيو سوعلي أمير من الأمراء الكبار أيو كدقى ببرسنة ونن ويله دقاليهنا وكفاءة قتالية عسكرية وله ونن ذكاء له very intelligent تخطيطات كعسكري قال رجال لوجا دنبايا كميدا وانين هدو يمادنا مماليك البحر يودا ما يكسو هيرنيسو يعني وجانا لوجا دنبايا وصار نقضي السنة قطس وحي موغتين ويهي نين أقول خطرت نفتي سمر كوات لبا هذه قردتك مضحضة هي متشعلة نين كلود waddanka ama ummadda dhexdeeda magac iyo maamuus ku leeyahay inuu dhinaciisa taagnaado waayo dadka madaxdii waxay jecel yihiin inuu alwaxiid noqdo ama urur yar ha haysto ama dawlad ha haysto ama kan ha haysto in laga garab hadlo ma jecla waa afraad yar dadka aqbala in qaada ay ummadda ku dhex jirto aan isaga ahayn waa dad yar ولا أورو إسلامي هالنقضان ولا أورو كلا هالنقضان ما ضحد واحد مدين عداديان إن يصاب حان قوة كله قطس وطراس كأقبلي بكم دي مركاسي ضل الله الله مكرامة مقعية ماموس ومدى كلين يكدح موضان ولذلك أيها الإخوة وين قرطان قضايا السياسة ماها معقولات قرى ماها أنا قرل يا أنا حقل يا أنا عين كله وقضايا كبيرة وباهن قفكو إنو جوانه هدو أمت ربينو هقامية أما وحبدلو إنو دول بدن وحكاية قابي وباهنتي إنو قيمية شرر كسيدو وكلا دورنا مربان خير بما يشعولين هاتشر دورنا يساون سيدو شرر كوكلا دورنا يوائيل قران كرا وينو نقضا وينو نقضا قف لا بلادن او دادك عفيكرا برا اللي يدلي أما برا نالا دعي أما برا koox dayada laga soo horjeestay ama bara koox dayada lacay ama bara koox dayada lala dagaalamay dabeeta dadka la heshiin mayno wax dad lagu hogaamiye maaha walidalik qudus wuxuu qaatay bulshadii muslimiinta ay Masar degareediya wixii raacaba
bishaakilaadkooda kala gedisan iyagoo wata inuu mideeyo qutus marka kan haddana wuxuu u baxay qadiyo saddexaad baa la yidhaahdaa oo ah asiyaasa alkharijiya siyaasa alkharijiya qayb waa muslimiin intii aan weli la qabsan shaam oo kale nimankii ayuubiyiintee joogay qaybna waa masiixiyiin imaaraadkaasi xeebaha ku taxan jooga ayuubiyiinta shaam jooga waa nimankii la colka ahaa dowla almamaaliik ee u arkayey towraan shaah iyo inay dileen ee intaasoo duulimaad ku soo qaaday bale waxaynu ka warrannay qutus laftiisa inuu laba goor ku soo duulay muqiisadiin cumarkii la odhan jiray oo laba jeer celiyey waxaynu hore uga soo warrannay ciisadiin aybakii lagu soo duulay oo uu celiyey yacnii imaaraadka shaam ka jira iyo masar dagaal baa u dhaxeeya oo intaasoo goor bay ayuubiyiintu soo duuleen iyagoo masar ku duulaya laakiin qutus wuxuu qaatay go'aan ah nimankaasi inuu heshiis la geli karo waa nimankii mamaaligtii baxrigii markay carartay dhammaantood soo dhoweeyey ee weliba rabay inay kula soo dagaal galaan dib ugu soo dagaalgeliyay meesha tan nimankan uu rabo inuu xidhiidhka la sameeyo waxaa ka mid ah baqdaad markii la qabsaday qaar baan xagga tataarka u duulinay masar ku soo duulo ayuubiyiintan ka mid ah iyadoo baqdaad la haysto caasimat alkhilaafa alislaamiya ayuu tataar ciidan kuma saarina wuxuu ciidankiisii ku soo saaray masar inuu qabsado iyo dowlat almamaaliik waxaas oo dhibi iyadoo jirta ayuu qutus wuxuu ka fekeray islaamkii waa kanoo saddexdii dowladood ugu waaweynaa jabe waxaa hadhay masar sidee islaam loo badbaadin karaa ma aha sidee kursigiisa loo badbaadin karaa taasi waxay keensanaysaa dad muslimiina oo cadow kuu ah ama aan kula koox ahayn ama mararka qaarkood xagga gaalka u janjeedhay inuu isku dayo inuu ka soo jiito ama ka soo kaxeeyo ama ugu yaraan inuu muxaayidiin ka dhigo muxaayidku wax weeyaan dhexdhexaad inuu ka dhigo oo isaga iyo tataarka isu daayaan caqliyaadka maanta noole waxay odhan lahaayeen iyagaa murtadiina ka bilow sacankaa maaha ama caqliyaadka maanta jira waxay odhan lahaayeen gaalka ku-xiga un ku bilow oo qoladan kristanka iyo meeshan ka bilow tataarka wuxuu arkaa waxaan oo dhan khatar ka weyni inay jirto ayuu qutus u arkayaa saa daraaddeed mashkilaadku way u kala ratiban yihiin iyadoo acdaa ay u wada yihiin isaga qoladan kristankii waa u acdaa oo kuwa dagaalka hadda kala soo baxeen ayuubiyiintan muslimiinta sheeganaya waa u acdaa oo kuwa intanoo goor ku soo duulay tataarkuna waa u col oo intanoo gura ka soo guuray saddexda colba mar lama wada dagaalami karo si awgeed wuxuu ku tala galay tataarka inuu colnimadooda u daayo iska dhiciyo kristanka inuu heshiis la galo oo ay nabadgelyo unisa siiyaan kuwa muslimiinta wuxuu ka soo jiidan karo inuu ka soo jiito oo safkiisa ku soo biiro siyaasa alkharijiya saasuu ku bineeyey dabeetana waraaq buu diray waraaqda koowaad wuxuu u dirayaa annaasir yuusuf dimashq kii haystay oo markaa ka ugu xoog buuran ah ayuubiyiinta waraaqda wuxuu ugu qorayaa niyo waxaan rabaa buu leeyahay masar iyo shaam inaynu midayno oo cadowga adiga kugu soo socday kugu soo horeeya aynu iska wada dhicinno waa intaan dimashq la qabsan dimashq iyo xalab buu ka talin jiray intaan la qabsan cadowga inaan kula dhiciyaa baan rabaa labada wadanna intaynu isku darno adigu madax ka noqo laakiin gaalka aan la wada dagaalanno waraaqdu uu qoray wuxuu ugu qoray baa la yidhi wain ikhtartanii khadamtuk wain اkhtarta قدمت ومن معي من العسكر نجدة لك على القادم عليك فإن كنت لا تأمن حضوري صيرت لك العساكر صحبة من تختار حلي هداد أقبشه نائب بان كون غنيا وكو شقينيا دولة دادي كو ديبيا هداد ربطه anigoo ciidankayga wataan kuu imanaya halkaasaan kaala difaac galaya masar sugi maayo inta la imanaye shaam baan ka dagaalgelaya anigoo ciidanka wata haddaad aniga iga shakisantay buu yidhi isku darso ciidankoo dhanna aan kuu soo diro
ciddaad adigu doonto madax uga dhigo ciidankii masar joogay waan soo dirayaa shaam ha kuu yimaado adiga ha ku difaacaan weliba ciddaad doontana madax ka dhig buu leeyahay ciidankaasi oo kaxayso naasir ma aqbalin midnimadaa wuu diiday midow ma raba buu yidhi waabuu isxambabooro wuxuu yidhi anigaaba dagaalamaya maxaan cid ula madoobayaa laakiin kooxda dagaalanta ma ahayne markii xalab la qabsaday ee isaga lagu soo dhowaadayna wuu cararay waataynu taarikhtiisa hore uga soo warrannay sidii uu ordayo kolba meel u gelayey meel yaroo jafar la yidhahdo saxaaro ah in hoolaaka ciidamadiisii intay ku qabteen hoolaaka loo diray nasiib darra laakiin intii hoolaaka lagu sii waday ayuu qutus soo jebiyey ciidamadii tataarka firdhadkoodii baa isaga hoolaaku u tegey hoolaakaa dib u soo celiyo yidhi kani waa khaayinku u shaqayn karaya meeshii madax uga dhigo isagoo dib loo soo wado ayaa firdhadkii ciidanku jebiyey qutus firdhadkoodii tataarkii oo cadhaysan ayaa cidlo ka helay iyadoo madaxnimo loo soo wado kuwaasaa diloo ka takhallusay isaga ayan kaanat naasir wuu diiday dabeetana wuu cararay naasirkaasi isagu siyaasadda kuma guulaysan shacabkiisii iyo ciidankiisiina ma difaacin aakhirkii markuu marayay ciidamadiisii qaybo ka midii markay soo gaadheen khazaya meelaha kan iyagoo aanu isagu la socon bay u galeen ayay qudus u galeen saaxibu xamaa meesha la yidhahdo ninkii haystay alamiir mansuur ayuu qudus waraaq kale u diray uu yidhi waanaan nimankaa la wada dagaalanno kaasi wuu soo aqbalay waxba kama qaba buu yidhi mid saddexaad buu la xidhiidhay almugiis cumar waa kark urdun meel ka mida nin haystay oo mar horena yidhi waan dagaalamayaa laba jeerna ku soo duulay masar laba jeeroo horuu masar ku soo duulay waa ninkan idin lahaa markii la qabsaday baqdaad buu isagu duulimaadka xagga ku waday laba jeer buu kaasina wuxuu aqbalay waan anigu adigana ku raaci maayo tataarkana raaci maayo iska dhexdhexaad baan ahaanaya alashraf ilayuubi kii la yidhaahdee ximis haystay kaana waraaq buu u diray kaasina qutus si toosu u soo diiday isagu wuxuu yidhi anigu safka hoolaakaan ku biiraya dowladda xoogga weyn la dhankeeda ayaan raacaya الملك سعيد mid la odhan jiray laqabkaa haystay xasan ibnu cabdilcasiis baniyaas ninkii xukumi jiray kaasina wuxuu u galay isaguna jeeshi tataar natiijadu waxay noqotay xamaan ninkii haystay diblomaasiyaddii qutus uu aqbalo isagu wuxuu yidhi waa kugu soo biiray kii xalab iyo dimashq haystay isagu waa kii baxsadee jabay laakiin isna ciidamadiisa wixii ka hadha iskaga cararay oo iyana ku biiray mugiis ninka la yidhaahdo kaasina wuxuu yidhi anigu dhexdhexaad baan noqonaya adiga iyo iyaga toona raaci maayo labadan kalena waxay ku biireen safka idan shan ayuubiyiina weeyaan mid aqbalay mid cararay oo ciidankiisii aqbaleen mid yidhi dhexdhexaad baa noqonaya iyo laba ku biiray xagga tataarka ku biiray qutus marka kan wadcigii daakhiliga ahaa wuu dejiyey oo dowlad raacsiisan culammadeedii askarteedii bikulli ashkaaliha iyo bulshadeediiba buu samaystay hadafku wuu cadyey oo labalaba kama aha ee waa inuu wax iska dhiciyo mamaaligtii wuu cafiyey way u soo galeen ciidamadii nafsiyan bay u raaxaysteen waayo ciidanku markuu isagu isku maqan yahay iyo markuu meel u wada jeedo waa kala nooc alcaduwi alkhaariji wuu kala soocmay oo badhna tataarkay ku biireen badhna isagay ku soo bireen badhna xiyaadi bay noqdeen
duwalkii yaraa ee saliibiyiinta iyaga waynu iman doonaa iyo suu ula dhaqmay intii uu wararkan waday tataarkuna waa soo socdeen shaam oo dhan way soo liqeen marka iyana markaa xuduudda masar bay marayaan ghazay marayaan ghaza ayuu tataarkuna soo gaaray shacabka masar waa shacab marka kan dhibaato badan oo dhaqaale soo martay tataarka iyo maxaa la yidhahaa sumcaddiisii dee cajiibka ahayd ee ay odhan jireen haddaad maqasho ciidan tataar baa la jebiyey rumaysan ayaa maahmaaha noqotay wixii oo dhammo mushkilada waa haysata wuxuu u baahan yahay markaa ummaddu intaanay dagaalgelin hamadeeda kor loo qaado in la dagaalgeliyo bulshada qaab macnawiya in loo dagaalgeliyo masar laakiin iyada lafteeda doctor raagib asarjani wuxuu leeyahay laba qiimo oo fiican baa yaallay laba value oo wanaagsan kow madhab sunniya baa marka kan biyo dhigay oo dee wakhti yar ka hor salaaxaddiin alayuubi ka hor dee dowla alfaatimiya shiica raafidiyiin oo aad u liita ayaa maamulayay waddanka salaaxaddiin alayuubi baa ka qabsaday marka kan culammadii muslimiintu ku soo keenay meesha madhab sunniya si fiican u faafay mamaaligtana waxaynu ku naqaanay inay yihiin dad culammada qadariya maadaama aynu nidhi tarbiyadoodii baa ahayd tarbiya diin iyo dad culammada qadariya rag waaweyn oo culammadii muslimiinta ee rumuusina wakhtigan waa nool yihiin waxaa ka mid ah sulطaan الculamaa alcizi bn cabdisalaam alcizi bn cabdisalaam oo marka kan 80 jiraa nool waa 577 buu dhashaan filaya wakhtigan hadda dagaalka loo diyaar yahayna waa 658 alcizi bn cabdisalaam markaa 81 sano meelahaasaa da'diisu maraysa waxaa jooga alcizi bn cabdisalaam oo ninkii ardaygiisii uu bixiyey maxay sulطaan الculamaa ardaygiisu waa kuma waa bnu daqiiq alciid markaa waddanka culamaa joogta laga yaqaano alcizi bn cabdisalaam ummaddu inaanay culamo tawjiihise ka maarmin baan idin tusayaa waxyaabaha guusha u keenana inay ka mid tahay bacd allahi subxaanaه wa tacaala alcizi bn cabdisalaam wuxuu ahaa caalim sunnada ku adag isla markaa mujtahida isla markaa wuxuu ahaa bay dhahaan nin kulmistay bayna fatwa alcibaada waalcaqiida waalfatwa fi lumuuri الsiyaasiya waalijtimaaciya nin mujtahida buu ahaa bay yidhaahdaanoo culumta sharciga ee caqiide iyo sharci iyo cibaada iyo mucaamalaadle si fiican u yaqaana oo ka fatwooda dhanka kale marka loo eegana qadaayaadka siyaasiga nin basiiro dheer u leh oo mufti ku abu ahaa bay yidhaahdaan alcizi bn cabdisalaam si aynu u fahamno sheekha kani qiimuhu bulshada maca ku dhexleeyaan laba qiso idin tilmaamo kow cizi bn cabdisalaam masar uma dhalan reer masar maaha waa nin reer dimashq ah dimashq buu ku koray dimashq buu wuxuu joogay khatiibka jimceed ahaa qaadiga muslimiinta ahaa muftiga dowladda ahaa laakiin asaalix ismaaciil alayuubi nin la odhan jiro dowla ayuubiya ka tirsan ayaa wuxuu qaatay go'aan ah najmuddiin ayuubigii masar haystee mamaaligta ka horreeyey ninkii mamaaligta sameeyey inuu ku duulo dabeetana wuxuu aqbalay inuu taxaaluf samaysto qolo kristana inuu kaxaysto isaga iyo gaaladu intay israacaan inay ku wada duulaan masar bishart gaaladu maxay ku raacaysaa labada magaalo sayda iyo shaqiif la yidhaahdaan idin siinayaa buu leeyahy labadaa magaalo idinku qaata hadday igula duushaan masar waxaanan aqbalayaa hubkana in laydinka iibiyo hubka in laydinka iibiyaa macnay samaynaysaa ma garanayo saa u fahmi kartaan wakhtigaa hore addowla alislaamiya baa sanaacaadka dunida hoggaaminaysay marka iyagay ahaayeen dadka hubka rasmiga ee fiican samayn jiray marka wuxuu leeyahay waxaan kaloo ogolahay muslimiintu inay hubka idinka iibiso oo aynu ku wada duullo qoladaas
العز بن عبد السلام مفتي دمشق ayaa wuxuu yidhi boqorku صالح بن إسماعيل mulkigiisa shakhsiga maaha buu yidhi dhulka muslimiinta isagu bixi karo waxaad leedahay la bixiyaaye dhulka muslimiintu boqoro waxaad adigu leedahay maaha buu yidhi sidaa awgeed ma asaxaysa buu yidhi waan bixiyeydu waa marka labaad buu yidhi muslim baa lagu duulayaa hubkaa laga iibinayaa masiixiintuna laa yajuusu baycu silaax buu yidhi hubkaa in la iibiyaana ma bannaana si muslim loogu duulo inaad ka iibisaan hub iyaduna ma bannaana buu yidhi dabeetana waxaa la yidhi qaadinimada waa lagaa casilay muftinimada waa lagaa casilay duruusta waa lagaa joojiyey khudbaddana waa lagaa joojiyey aamus wax dambe ma sheegi kartid markii wax walba laga casilay ayuu iskagaba tegey magaalada way xidheen mudduu xidhnaa xabsigii markii uu ka soo baxay oo wax walba loo diidayna uu iskaga tegey baytulmaqdis buu qabtay بيت المقدس بس كذا تلاقي إنه هالكي ساوح كله جوا حخريه يسوق هالكي شوجة أيا إسماعيل كي الصالح إسماعيل الأيوبي يقول ذي كريستن كوا الصعوتات دولمات كي يقود الصومري شاخينا وحشوجة بيت المقدس دبتنا نكنا ونسمع معاه يبلشة ما قعقوله ولي wuxuu rabaa inuu muslaxdo sheekha nin buu u diray wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa fariintaa gaadhsii nin baa u yimi sheekhiyo meeshiisa iska joogo wuxuu ku yidhi sheekh in wixii aad mansab haysato dhan lagugu soo celiyo qaadinimadii iyo madaxnimadii iyo muftinimadii iyo khitaab wixii oo dhan inaad hesho iyo wasiyaada weliba dheeraadna lagugu daro waxa kaa xiga uun inaad suldaanka u yara cudur daaratid suldaanka u tago tankasir leh u yara cudur daaro oo gacantuun ka dhunka buu yidhi bas intaa un samee suldaanka intaad u tagto salaam dheh khalaas arrimuhu dhegdheg bay noqonayaan wax waliba way dhammaanayaan العز بن عبد السلام وحو والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وحكو يدي مسكين يهو إنو أنا قعنت إذا دونكده رالي كما هي تيس داينا دونكده هذا واحد لك على بقر كسر دونكه يسقوا إنو يمادا أنا دونكده ما ربابو كيدي إيه وحن كوش يجي يبودي إذن دم باو سعطان أنا دم كلامو سعدا إسكو وبي ما هيسن نبله إسكو ضاح إسكو وضم ما هينو إذن كنا وضع هيسان أنا كنا وضع كلا أيان هيستاي إلهي بان ما هدينا إياه waxa idinka idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay de adduun baa aakhira siisateene ilaahay intuu idinka idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay baan waxay marka loo xidhay dabeetana isagoo khaymad yaroo kanu boqor ku jira dhinaceeda ku xidhan oo quraan akhrisanaya bay yiraahdeen baa waxa uu soo galay saliibiyiintii baa waxa u yimaadeen ismaaciilkii iyagoo la hadlayo yiri quraanka baxaya ma maqlaysaan markaasay yiraahdeen haa wuxuu yidhi waa muslimiinta wadaadkii ugu weynaa ayaa halka igu xidhan waxaanan u xidhay arrimihiinuu diiday yacni waa uun irhaabigii ugu weynaana waanu haynaa duwalka reer galbeed marka kii ugu weynaana xabsigu igu jiraa weeyaan qoladaasi marka wuxuu leeyahy kii ugu weynaana halkuu joogaa oo uu ii xidhan yahay laakiin qoladan masiixiyiinta waa qaar ka caqli badanba ninka kan waxay ku yidhaahdeen annaga hadduu ahaan lahaa qisiskayga ugu weyn cagihiisa intaanu maydhnaa baanu biyihiisa cabbi lahayn bay yidhahdeen inaanu xidhna daaye dadkaba ninkii cilmiga u hayay haddaad xidhatay annagu maanan xidhaneen bay yidhahdeen ka noogu weyn intaanu addimadiisa maydhno ayaanu cabbi lahayn nasiib wanaagse waataynu dhi najmudiin ayuub markaynu ka soo sheekaynaynay qoladan wada socotoo dhan intuu jabiyey buu bayt almaqdis xoreeyey 643 waynagii soo sheegnay in la xoreeyey bayt almaqdis meesha dadkii lagu xoreeyey buu ka mid ahaa sheekhu markaa wuu kaxeeyey najmudiin ayuub baa kaxeeyey oo geeyey masar baa laga dhigay muftigii iyo qaadigii iyo wixii oo dhan laakiin sheekhu markuu masar yimi ayuu wuxuu u yimi niman mamaalika
oo umara oo dadka xukumo oo caynkan oo uu boqorku leeyahay dabeetana haddana sheekhu masar buu fatwo kale ka soo saaray nimankan beecooda iyo maamulkooda toona laa yajuus ma bannaana buu yidhi oo sheekh maxaa dhacay waa addoommo buu yidhi cidima xorayn manaasib alculya lidowla alislaamiya xornimo u shardiya beecooduna ma asaxo weli waa addoommo buu yidhi nimankan waxba kama socdaan dowladda dhan oo meel ka talinaysu sheekhu yimi laakiin fatwadiisii haddana waxay taagan tahay wixiina kane sidan uma socdo waa la cadhooday ilaa xad ay isku dayeen inay dilaan mid ka mid ah amuuradii ugu waaweynaayo qolada tan baa u soo galay isagoo raba inuu dilo seeftiisa sitaa la yidhi albaabku ku garaacay sheekha inaanu dhalay baa u yimi wuxuu yidhi aabba waa hebel oo seef sita markaa wuxuu garanayaa dee mamaaligtuna dhiiggu waa la fududaa waa hebel oo naa'ibkii oo seeftiisiina sito hubaysan wuxuu ku yidhi waryaa aabbahaa in ilaahay dartii loo dilo wuu ka liitaaye ka fur albaabka soo daa buu ku yidhi yacni hadday shahaada fii sabiili illah aanu dhimanayo waxaas dhib maaha buu yidhi soo daa wuu soo galay markuu u soo galay sheekhu buu haddana dib u baqa sheekh maxaad saa noogu samayso war kaluu bilaabay sheekhuna wuxuu istaagay halkiisii haddaad rabtaan saasumaa la yeelaya boqorkii bay gaadhay boqorkiina wuu cadhooday sheekhii uu baytulquds isagoo maxbuuska ka soo daaya caynkaasa haddana fataawidan bixinaya boqorka laftiisii uu ka cadhooday markii la cadhooday ciizadiin ibnu cabdisalaam wax kale ma samaynin wuxuu yidhi caynkaa ma tahay haa khalaas qaadinimada iyo muftinimada iyo maamulka iyo wixiinoo dhan qaata mar haddaan la oggolayn mabaadi' diina intaan sheegay inay faafto waan iska tegayaa dameer uu haystay buu fuulay reerkiisiina dameer kaluu saaray magaaladana uu iskaga baxo tuulu isaga baxay wadaadku adduun laba dameer buu ka wataa laakiin masar oo dhan baa ka daba dhaqaaqaday alcizi bin cabdisalaam magaalada hadduu ka baxa baa la yidhi yaa joogaya tujaartii culammadii dadkii wixiiba waa la dabagalay boqorkii baa war loo geeyo waxa la yidhi magaaladii waa gilgilantay sheekhiina safar yacni culammada dadku culammadooda way qiimaynayeen oo agteeda culammada magac ku lahayd walidaalik baa sheekhu wax ma dilin wax ma maagin waxba kale ma samaynin mujarad waanu iscasilay waanu iska tegey laakiin magaaladii dhammayd baa daba gashay boqorkii wuxuu arkay in qadiyadiisuba ay khatar ku jirto isna wuu ka daba tegey boqorkii buu wuxuu u tegey alcizi bin cabdisalaam baa loo tegey sheekh soo noqo baa la yidhi wuxuu yidhi soo noqon maayo fatwadaasoo aad fulisaan mooyaane oo maxaa see loo fulinayaa nimankani waa addoommo waa la iibinayaa suuqaan geynayaa waa la iibinayaa marka la iibiyo ragga iibsada ha xoreeyaan markay xoroobaan hadday doonayaan maamul u dhiiba markaa adigu madax ka dhigo waa madaxdii dawladdu iibinaya halkaasuu taagaya isagu anugu nimankaa madaxdaa waan iibinayaa buu leeyahay haddii aad aqbalayso sidaana waan soo noqonaya haddii kalena oo saad odhanaysaa baa la yidhi lacagtooda baytulmaalkan ku shubayaa buu yidhi waan iibinayaa dabeetana muslimiintaan ku bixinayaa danahooda guud waxay noqotay dawladdu inay khalkhal gasho iyo in la aqbalo fatwada alcizi bin cabdisalaam waxaa la yidhi waa la aqbalay uu soo noqday madaxdii iyo umaradii buu u yeedhay kolba mid buu soo taagaa yaa gadanaya dabeetana qiimaa la sheegaa wuu qaaliyeeyey intaa siin maayo buu yidhaahdaa addoonkan dawladda alaho qiimo qaaliyuu ku iibiyey lacagtii uu ku iibiyeyna khidmaadka muslimiintu uu ku bixiyey maxaan u sheegayaa qisada alcizi bin cabdisalaam waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo dawladdoo qura maaha waxa dagaalgelaya ciidamo qura maaha waxa dagaalgelaya waxa weeyaan ummaddani waxay haysataa rasiid dad shacabkooda hadday wax u sheegaan ay shacabku aqbalayaan oo aan maamul iyo askar ku xidhnayn walidaalik markii tataarka qadiyaddiisii soo dhowaatay dawladdiina nin saalixi uu qabsado qitus la yidhaahda qutusna go'aankaa uu qaatay inuu dagaal galo siyaasa alkhaarijiya iyo daakhiliyaba uu nin ku guulaystay noqday ilaa xaddin ma ciidamadiisii iyo wixiisii oo dhan urursaday muslimiintii dabadda joogtay wixii uu la heshiin karaya aqbalay oo dhan uu la heshiiyey
wixii gaalada raacaya inay toos gaalada u raaceen waxa loo baahan yahay shacabkan in la dhiiri geliyo ay dagaal galaan shacabka masarna waqtiga kan dee dagaaladii front guard oo dee kristanka bay ku jireen dagaaladii crusadeska marka waa shacab qiimatul jihaad aanay wali agtooda ku dhimanin aljihaadu fi sabiilillah waa shacab wali uu agtooda ka nool yahay qadiyadu halkaa markay marayso وإن لنا شعب كي مصرنا والله خطبديي وعلماء دي والله هذا الشيء ومدي ولا دجال قليي أيه هلاك وراق صادرة وراق ده وحوس دي بي أفرنين وتتاركي كم ده دبترن من كي رسول شهابة مقالة القاهرة صاق علي وراق بي وكانين قطس وراق ده محاكو قرن باسم إله السماء الواجب حقه الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك صاحب مصر وأعمالها وصائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وبادها وحاضرها أن جند الله في أرضه وهناك شيء أن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم رسالة تنوى رسالة دير هناك وحلي مقعة إلها عركة له أي واجب كطاعة ستهيبا كوب فرفرطي أي دول كي مكانسيي أي خلقي سيقصر لضي بغر يهوب يرميش تشوغا ee waliba adoomaha kamid min jinsi ilmamaalik ka tirsani ee masariya inta u dhadhow xukuma waxaad ogtahay buu yidhi annagu inaanu nay askartii ilaahay cadhada ilaahay baana laga abuuray wixii rabbi nacana waana lagu salliday waxaan dhul soo baabi'iyey baa kuugu filan cibro qaadasho ee dadka kale ku cibro qaada buu leeyahay oo maxay yeel amarkiina noo dhiib intaan ceebtiinnu muuqan oo gafkiinnu idinku dhicin annagu ku ooya uma naxariisanno ku ashtakooda uma qalbi dabacno dhulka waanu furannay fasaadkana waanu ka tirtirnay waajib idinka orod baa idinku ah buu yidhi annagana eriyashaa nugu ah inaa idinku yaacdaan waa waajibkiina buu leeyahay anna inaan idin caymadiyaa waa waajibka ay saaran dhulkee idin hoyn kara xaggaa seeftayada ka geli kartaan gacantayada lagama baxsado fardahayaga lagama dheereeyo seeftayadu waa sida danabka warmahayagu waa kuwo wax jeexa qalbiyadayadu waa sida buuraha tiradayadu waa sida ciidda qalcad iyo xusuuni yacnii meel la galaa wax nagama celiso ciidan la samaystaa wax nagama anfacaan baryadiinnana looma aqbalo waayo buu yidhi xaaraantaa cunteen oo salaanta inaa celisaan baad diiddeen oo dhaartaa beeniseen oo cuquuqul waalidaynkaa idinku tiro batay oo cisyaankaa idinku badan ku bushaaraysta buu leeyahy dullinimo iyo mahaana markaasuu qur-aanna ku soo qoray meel kasta adiib munaafaqaa jooga kuwan wuxuu soo qoraya ee afkan carbeeda caynkana soo qoraya waa udaba munaafiqiin oo tataar ka tirsan qur-aan bay soo istidlaanayaan dhayso warqadda holaaka waxa ku qoran فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هلاك سوقرية ما أنت بولي عذابك وح دلية أيا ليدين وحا عمل سميسين دراديد كوا ظلمك السماية ماشي ونقون دونا وقران دونا بولي
هولاك وحليه وقد ثبت أن نحن الكفر وأنتم الفجر أبو يدي واسوغنت أبو يدي أنكو إنا نقالني إذنين فاجرين تهين وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور لكن وحنا وكيني تحامي بيدي الله قعنتي سوح ولي بكو تشيران تربدني دونو أنك أكتيا ووحير بيدي شرفتي إننا أكتيا دوا ذليل نمو ما لملوككم علينا بغير المذ دل النمو وحانا هين بولي أن بغرتويو يمكن نوها يا مجرته وراقدا وحكوك بقبي فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا رد الجواب وركراها يقول بديننا جوابتنا نخصو صادرة وريرا كوبان وويس ديبنيون صادرة ده وحكالا لدين كما سوغي وياه ساسو هولاك صاقرة والرسالة أن دبلوماسية أقونين دولكم مركب وذا هضليان ولو ضعيف يكرر الله الله يساه نوع من ماء الوجه بي والدوران oo sida askartu ama dadka suuq u wada hadlaan loolama hadlo qofka dawlad maamula walow daciif iska yahay idinka arkay dawlada yar yaro intay dawladaha waaweyn u tagalayda danaha labada dawladood baan ka wada hadalay sidii mustaqbalka loo horumarin lahaa waa luqad diblomaasiya qofka ma il wajhi baa loo ilaaliyaa laakiin hoolaakad xataa taasi kuma jirto risaaladiisu wax weeyaan waa dagaal waxaana weeyaan isdhiiba idinku aan wax shartiya ku xidhin wuxuu isugu yeedhay markaa qutus qaadadii iyo umaradii iyo wasaradiisii buu isugu yeedhay wuxuu yidhi ciidamo gardaran baa inugu soo socda ciidanka gardaranna war naga noqda cidi kuma qancisa buu yidhi war naga noqda kuma qancaan ee waa la qasbaa inay kaa noqdaan aniga waxay ugu muuqataa buu leeyahay inaynu wax iska dhicinno waa khiyaar sacab akbar dawla saddex dawladood oo waaweyn oo muslimiina soo liqday min Turkistan sharqiya China laga soo bilaabo muslimkii joogay ilaa iyo Gazay marayaan Falastiin inta ka dhaxlay wixii muslim joogay way ka soo takhaluseen xagga shishe ونمانكي كتخلصي China iyo Korea iyo wax duwal 12 dawladood oo yaryar meesha ku taxan Asia dhamay soo laqeen ciidanka inta laakiin laga hortago khiyaarka ay la qaataa khiyaar fudud maaha waayo dawlad Korea ila Poland bay ka taliyaan inta u dhaxaysa marka kan Korea ila Poland inta u dhaxaysa ka taliyaan waa dawlad ka hub badan ka sumcad weyn ciidankeedu sumcad badan haysto ciidamo waaweyn oo muslimiina oo dawlad khawarzimiya iyo armeniya iyo kurjiga ama georgia iyo dawlad abbasiya iyo yurub iyo shaam waxa soo dhanbay liqeen qutus laakiin wuxuu leeyahay waxa rabaa inaan dagaalamo qaadadii iyo ciidamadii inuu qanciyo dagaalkuna ma fududa لكن محو استعماله وحيد هذا لما طريقه استعماله كو وحيد وريا ومدحني عند الله هذا إياه وروان دقالما يا بودي وان دقالما يا مركان الله يهينا عندما دري مايو أنا ألقي التتار بنفسي أنا تتار كنفتي ذاك له ارتقية معها دولتي عيدا يا وحدري ما يبولي anigoo askariya oo dagaalamaya ayaan frontka tagaya waa woodi karay waa nin madaxeed madaxweynihii wadanka inuu ciidamada yiraahdo dagaal taga laakiin wuxuu leeyahay dadku raba inuu qancaan dantu doonaya buu rabaa inuu dadka ku qanciyo wuxuu leeyahay waan dagaalamaya qaa'idkuna hadduu ummadda ka horeeyo ummaddu way daba socotaa saxaabada maxaa geesinimada baray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiina habeen qayla yeedhay dabeetana nabiga uu soo horbooday abu talha faras uu leeyay ayuu dhufsaday farasku kooraya waxba ma wato waa leedo ma sugin inta wax la saarayo wuu baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam intii dadku isu soo baxbaxayeen ayuu soo noqday nabi maxamed isagoo le lan turaacu waxba ha cabsanina يعني أنا كور كاني ماشي دبتو كجرتي وقائد الأمة
isagu ka warkeenaya halka dhibtu ka jirto oo saxaabadiisii geesiyaada ahaa buu u soo noqday isagoo faraska wata markaasuu wuxuu ku leeyahay lan turaacu laqad wajadtuhu baxra waa xadiidkii bukhaari faraskan abu talxana waxaa sida xadiidka ibnu maaja tilmaamaya waxaa lagu yaro tilmaami jiray inuu faras gaabiyo yahay nebigu wuxuu yidhi waa bad kani orodka waxay yidhaahdaan maantaa kadib lama qabanin faraska laftiisana faras dheereeya alla ka dhigay si kastaba ha noqotee qaa'idku hadduu ka horeeyo ummadda oo waxaan uu sheegayo isagu ficliyan u samaynayo ummadda way daba gashaa walidalik buu caliy bnu abi aalib oo geesiyadii muslimiinta ugu weynaa baa wuxuu lahaa marka dagaalku adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu leeyahy waxaynu naqaanaa ghaswatu xunayn markii la jabay ee la cararay nebi maxamed intuu dhawaaqay buu lahaa ana nebiy ana bnu cabdilmuطalib laa kadib iyadoo saxaabadiisii jabtay oo ay ahayd hadduu saxaabadu jabto inaad yaro dhuumato ama uun si uun samayso ayuu nebi maxamed qaylinayaa weli oo leeyahy anigu waxaan ahay nebigii alla soo diray in cabdilmuطalib baan ahoo been maaha buu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam qutus wuxuu rabaa markaa atarbiya bilqudwa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo inay shahaadadu wax la doonto tahay inaanay noloshu wax la isku adkeeyo ahayn markay u baahan tahay inuu qofka muslimka horu maro walidalik buu wuxuu ku yidhi waan dagaal gelayaa waa markii koowaad shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi yaa umaraa'i almuslimiin lakum zamaanun ta'kuluuna min bayti ilmaal wa antum lilguzaati kaarihuun waar madaxdii muslimiintaah waar in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyahy maantana dagaalkaas oo nacnacaysaa anigu waan baxayaa ee ninkii raba inuu dagaalamo iraac ninkii aan rabinowna waan ku fasaxaya iska hadh buu leeyahy laakiin waxaad ogsoonaataa dembigaaga iyo dembiga dumarka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta inay adiga luquntaadtay ninka hadhayo khudbaddaasi u jeediyey khudbaddiisu waa laba shay waxa weeyaan anaa dagaal gelaya shayga labaadna waxa weeyaan idinma qasbayo wixii raba inay dagaalamaan oo iraaca jihaadka layskuma qasbo nebi maxamed marnaba munaafiqiinta ma qasbin bale intuu baxaaba iska hadhaan hadhowna waliya bilay maraano way cudurdaartaano wuu ka aqbalaa bale isagoo sii socdaa kolba ninka daba yimaadaa markaasaa la yidhaahdaa nin baa soo socda ilaahu hebel ka dhig buu yidhaahdaa yacni danka ma lahayn munaafiqiintu inay hadhaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay hadday idinla baxaan la awdacu khilaalakum ilaahay wuxuu tilmaamay hadday idin raacaan munaafiqiintu inay un fasaad idinku kordhinayaan iyo mashkilad yaanay wax wanaaga idiin haynin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisu mu ahayn mid dadka la qasbo la yidhaha qasab ku dagaalama iyo raaf dad askar lagu qaadaa ma jihaatamaan walidaalik khudbad isagoo ooyayuu wuxuu ugu gebagabeeyey baa la yidhaahdaa yaa umaraa'i almuslimiin man lilإslaami in lam nakun naxnu madaxdii dowladda muslimiinta ahay yaa islaamka u halgamaya ama difaacaya haddaynan inagu difaacin buu leeyahay kelmaddaasi madaxdiisii way ka oohisay waxaanay qaateen go'aanka ah inay la dagaal galaan qutus wuxuu isku dayey inay arrintu ka noqnoqosho yeelanin wuxuu u yeedhay afartii nin ee warqadda siday dabeetana afartaba madaxuu ka jaray dabeetana madaxyadoodii buu albaab ka mida albaabka qaahiro suray culammada qaar waxay idhaahdaan malaad quds mas'aladaa muu asiibin waayo cinda almuslimiin rususha lama dilo dadka ergada ee la soo diro lama dilo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxay laba nin ibnu nawaaxa iyo ibnu uthaal laba nin oo la odhan jiru musaylamat ilkadaab soo dirtay musaylama nebi baan ahay buu leeyahy dabeetana nebi maxamed buu u soo diray laba ergey labadii ergey baa nebiga u yimi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashhadaani annii rasuulu ullah waar ma qiraysaan inaan ilaahay rasuulkiisii ahay waxay idhahdeen nashhadu anna musaylamata rasuulullah nebi maxamed bay hortaagan yihin waxaanu qiraynaa bay dhahay musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yahay
musaylama inuu ilaahay rasuulkiisa yahay baanu qiraynaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aamantu billaahi wa rasuulih anigaa rumeeyey ilaahi iyo rasuulkiisiiba ee haddaan cid dilayo haddaan rasuul erga la soo dira haddaan dilayo waan idin dili lahaa buu nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee agtayada ergada lama dila buu nebigu leeyahy qutus laakiin mahmaa kaan ijtihaadku si kastaba ha la maree afartiiba intuu dilay ayuu albaabada sudhay marka kan qutus mashkiladda ugu weyna haysataa waxa weeyaan waa mashkila iqtisaadiya waayo ciidan ballaadhan oo la dagaal geeyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale xooggan isaguna meesha gebigeedaba wakhti yar buu saaran yahay qutus maca intuu dagaalka galay maca intuu guulaystay maca wuxoo dham sanad ma gaadho sanad waxlaa buu ku dhintay markaa qutus madaxba wuxuu yahay dhowr bilood waddankiina asma iqtisaadiyana waa ka jirtaa fitan baa ka jiray mashaakil baa ka jiray tijaaradii muslimiinta guud ahaanba way istaagta waa kan tataarku bariga iyo wixii oo dhan qabsaday asma dhaqaaleed xooggan baa ka jirta see loo dagaalgelinaya marka saddex biloodna madax buu yihi khasnadii dowladdana dhaqaale kuma jiro wuxuu isugu yeedhay culammadii iyo dadkii culammada markaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo waxaan rabaa dariiba tax cusub in dadka laga qaado aan dadka ku dagaalgeliyo cashuur ha la qaada buu leeyahy zakadii iyo wixii kuma filla markaa cashuur ha laga qaado dadka wax haysta si ciidanka loo hubeeyo loo dagaalgeliyo laakiin halkan waxaa joogaa nin caalim oo muftiya oo aan qalqalloo cumarin ibnu cabdisalaam la yidhaahdo ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi haddii cadow dhulka muslimiinta ku soo duulo waxa waajib ku ah muslimiintoo dhamme inay la dagaalamaan waana bannaan tahay raciyad iyo shacabka in laga qaado wax dagaalka lagu galo oo ka badan zakawaadkii iyo wixii laakiin bisharti buu yidhi hanti weydiin maayo ilaa sharti la helo baytulmaalka khasaanadda dowladda waa inaan shilin ku hadhin buu yidhi dowladda oo lacag haysata dadka wax laga qaado soconaysa buu yidhi khasnadda dowladda kow waa inaan shilin ku hadhin marka labaad buu yidhi nimankiinan umarada iyo madaxda ah ee nin walba dhulka iyo tuulooyinka dhan loo gooyey ee hubka iyo dahabka iyo qalabka haystaa idinna waa inaad dadka la mid noqotaan aan waxba idinku hadhin haddii madaxda dowladdu hantideeda keento khasnadda dowladda waxa ku jirana la keeno markaasaan fatwoonayaa buu leeyahy in dadkana xoolaa laga qaado iyana waa fatwo kaloo adag oo umaradii hadda lagu soo qanciyey war dagaal gala xoole waxa idinku haysateenna geeshka siiya iyada lafteedu ma fududa laakiin alciz ibnu cabdisalaam go'aankiisu waa kaa waa xaaraan buu leeyahy shacabka xoolahooda la qaato iyadoo aanay idinku aydan la simanin dee nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixi muslimka wuxuu ku tilmaamaya fawalladii biyadih laqad taaba tawba low taabahaa saaxibu maksin lagufira lah gabadhii zinaysatay ee la rajmiyey ayuu nebi moxamed wuxuu leeyay waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keena ka cashuurta qaada ilaahay dembigiisa uu dhaafi lahaa muxsinadda la dilay toobaddeedii waxaa laga dhigay toobad xataa loogu dembi dhaafaya maxay kan dadka xoolahooda baada ku qaada yacni xoolahoo baada lagu qaadaa kaannama ay ka weyn tahay maxay warku markuu halkaa marayo ayuu qutus wuxuu yidhi fatwada sheekha waa aqbalay anaa ugu horeeya faraska iyo seefta mooyaane wixii aan hanti leeyoo dhan waan ka dhaadhacay buu yidhi waa ka daadegay waxaan hanti wato waxaan aqbalay in ciidamada lagu wareejiyo mar haddii dee madaxweynihii wuxuu haystay wareejinayo waxay noqotay umaradii iyo dadkii kalena inay aqbalaan waxay haystaan inuu wareejiyo alciz ibnu cabdisalaamna wuxuu fatwooday dagaalku wuxuu u baahan yahay hantiya markaa in la bixiyo masarna sheekheeda waa daba socotaa markaa mushkiladdii dhaqaalahana waxay u muuqataa in la xallilay xalkeedii la helay ciidankii waa la diyaariyey waa la dhaqaaqay
waxaase markaa iyana mashkilada wuxuu qaatay go'aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin waayo wuxuu leeyahay ciidanku hadduu masar jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waa inaan ka hortagaa buu leeyahay oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay dowlado yaryar oo badan oo masiixiyiin ah oo uu ka baqay inay ama waddankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan tataarka mal camal idan ma iyagu ku bilaabaa kuwa kanoo waddadu bannaystaa hadduu waddada bannaysto kuwan ku bilaabana tataarkoo boqolaal kun oo askari haysta wuxuu gaadhayaa isagoo dhaawac iyo dhimashaba sita oo dagaal la soo galayoo dhib qaba iyadoo awalba laga xoog badnaa haddana ciidankiioo soo dagaalamay inuu tataar gaadhana waa dhib badantay wuxuu qaatay caqliyadda ah inuu kuwa taxyiid alacdaa yacni nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaallada gelayey muu odhan gaal oo dhan baa la dagaalamaya laakiin wuxuu go'aansaday inuu quraysh la dagaalamo oo iyagaa dagaalka ku bilaabay dadka inta kalena inuu heshiis la galo iyagoo gaaladooda ah yahuud saddexdii qabiilba heshiis buu nebi moxamed la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'il kaloo badanoo carbeed heshiis buu la galay qurayshna dagaal bay isku wadeen siyaasadda islaamiga kama mid aha nin yidhaahda gaalow cirka iyo dhulkaba iskaga kaalay anaa kuu babacdhigaye ma aha siyaasa islaamiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu gaalo kala qaybiyo ayi mowqica aad daraasayso taariikhda islaamiga ka mid oo rasmiyana waxaad arkaysaa falsafaadkan inay isticmaalayeen raggii guulaha taariikhiga islaamka u soo hooyey qutus go'aan buu qaatay markaa ah iyadoo saliibiyiinta ay ishayaan iyadoo dagaalkii toddobaad ay marayaan iyagoo ay ka khatarsan yihiin tataarka waayo iyagu istaytaan bay wadeen inay dhulka degaan bay rabeen oo ay kiristaaneeyaanoo mabaadi' bay wadeen qolada tani xoolaha iyo dadkaba way dhacayeen ama waa leynayeen iyagu diin iyo mabaadi' toona may wadin de xadaaraba may wadeen inde qoladan eshiya ka timi ee tataarka ahi laakiin waxaa khatarsanaa marka kan qoladan saliibiyiinta ah wakhtiga kan laakiin wuxuu u arkayey inaanay wakhtiga kan hadduu heshiis iyo nabad helaya inuu heshiis iyo nabadda qaato qutus markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah cakuu u diray waa caka xayfa sayda suur bayruut laadaqiya antakiya waxaasoo dhamme waa duwal kristan ah oo meesha ku taxanayana waa duwal kristan oo xataa salaaxaddiin alayuubi uu awoodi kari waaye inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul uu leeyahay caka waxaan idinka rabaa inaynu heshiinno akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen wuxuu ku talagalay intaanay tataarka la heshiin inuu isagu la heshiiyo waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan 10 sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood dhulkaygii waan ka imiyey wixii ciidanku uu u baahdo ee raashinka iyo wixii la mida inaynu wax kala iibsanno dad nabadoo wax kala gadanaya noqonno abaalmarin haddaan intaa ii gashaan idinkana waxaan idiin samayn doonaa haddaan tataarka jabiyo fardaha tataarka ee khatarta ee aad taqaaniin baan wax idinka siinayaa buu yidhi oo idinka iibinaya kuwaasaanana wax idinka iibinayaa haddaa idinkuna heshiiskani la gashaan waa heshiis tabaadul ilmasaalix cakana waa meel aad u qalcado xasiina leh way aqbaleen heshiiskaasuu la galay wuxuu bilaabay markaasi inuu ciidankiisii soo dhaqaajiyo ciidankii markii ay caddaatay inuu soo dhaqaajinayo dee kollay dad ama niyad jilicsan ama aan dagaalka jeclayn waxbaa jira askartii wax ka mid iyo waxbaa baxsaday oo markan dagaalka baxsaday qaar baa orodkii xijaas galay qaar baa yaman galay qaar baa maqrib alcarabi u cararay laakiin dadka wixii ku qancay inay dagaalamaan kuwa kani wuxuunbay ka mid ahayeen kuwii ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wa fiikum samaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin ciidamada wixii aqbalay iyo shacabka wixii dagaal aqbalay iyo dadkii muslimiinta o dhan baa la soo kaxeeyey
falastiin sinai meel ku taalla oo saalixiya la yidhaahdo meel bannaana ayaa ciidamadii meelihii casaakirta iyo kuliyaadkii lagu tababarayay iyo wixii oo dhan markii laga keenay halkaasuu isugu wada keenay marka kan waxay maraysaa waa awaa'ilu shacbaan awaa'ilu shacbaan waxaynu ognahay safar baa la qabsaday maxay baqdaad caasimat almuslimiin dimashqna rabiicul awal baa la qabsaday haddana shacbaan baa la joogaa shacbaan buu markaa wuxuu keensaday waa wakhti julaay ku beegan oo kulaylo ah sinai waa kulayle wakhtiga xagaaga wakhtigaa kulaylka ah ayuu saxaarahaasi aqbalay inuu ka tallaabiyo ciidamadiisa waa ka soo tallaabeen dariiqo cusub oo marka kan aan lagu aqoonin dagaalka buu isticmaalay wuxuu isticmaalay ciidan muqaddamo ah oo xooggan inuu sameeyo oo ciidamadiisa in badan ka horeeya muqaddamada طaliicada yacni ciidanka hor socda wax badani uma dhexeeya sida caadiga la yaqaano laakiin marka kan wuxuu samaystay ciidamo muqaddamo ah oo xooggan ciidamada tan wuxuu u dhiibay ciidamadii masar ninkii ugu khabiirsanaa ayaa hoggaankooda loo dhiibay oo ah bebros ninkii la odhan jiray والله أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم